habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka waxaan ahay cabdiraxmaan bidhaan wararkeena caawa waxa ugu waaweyn golaha dhexe ee xisbiga dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa shalay Mustafa Maxamed Cumar u doortay inuu noqdo madaxweynaha ku-meelgaadhka ah ee kililka warbixin dheeraad ah iyo falanqeyn ayaanu idinka haynaa warkaasi madaxweynaha cusub wararka kalena waxaa ka mid ah beeraleyda Shiinaha ayaa lagu cadaadinayaa inay wax soo saarka kordhiyaan iyadoo dagaalka ganacsiga Shiinaha iyo Mareykanka u dhaxeeyana sii kululaanayo waa la sii daayay haddana markiiba dib ayaa loo taxaabay xildhibaanka reer Uganda ee heesaaga ahna Bobby Wine ayaa imika lagu soo eedeeyay khiyaamo qaran dooda khamiiskiyo toddobaadkanna waxaanu kaga hadlaynaa maxay kaga dayan karaan haweenka Soomaaliyeed guushii Ilhaan Cumar si ay wax uga bedelaan doorka dumarka ee siyaasadda iyo hoggaanka kala soco BBC News Somali telefishinka raadiyaha online-ka iyo bogagga bulshada halkani waa London caawa iyo caalamka golaha dhexe ee xisbiga dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa shalay Mustafa Maxamed Cumar u doortay inuu noqdo madaxweynaha ku-meelgaadhka ah ee uu yeelanayo maamulkaasi waxa uu xilka kala wareegayaa madaxweynihii hore Axmed Cabdi oo dhawaan xilkaasi ku-meelgaadh ah isna loogu doortay madaxweynaha cusub ayaa hore ugama tirsaneen xisbiga dawladda deegaanka sababta keentay in qof aan hore xubin uga ahayn xisbiga loogu doortay inuu noqdo siihayaha jagada madaxweynaha ayaa maamulka deegaanka ayaa madaxweynihii hore uu ku sheegay waxa laga fogaanayaa buuri inuu burbur ku yimaado xisbiga haddaba madaxweynaha cusub waa nin caynkee ah waxaan goor dhaweed kula hadlay Bashiir Yuusuf Faarax oo jaamacadda Maastricht University ee Netherlands ka tirsan khadka Skype-ka waxaanu madaxweynaha hore la soo shaqeeyay Cumar waa nin aqoon-yahana leh waayo aragnimo iyo maaragtay aqoon kala duwan oo khibrad iyo waayo arag isugu jirta maxaan dhahdaa dawladeed iyo mid hayadeedba waa nin jecel afkaar kala duwan in danta ummadda lagu eego siyaabo kala duwan looga hadlo sidaas oo jirta iyo kartida iyo aqoonta iyo hawlkarnimada uu Mustafa leeyahay lama oran karayo keligii baa dadka dhibka ka saari karaya wuxuu u baahan yahay garab qabasho weyn wuxuu u baahan yahay in la garab istaago haddaba waxaa istuudiyaha ila jooga caawa Maxamed Xaaji Ingiriis oo arumaha gobolkaasi aad ula socda maxamed ku soo dhawow BBC-da maxamed madaxweyne cusub la doortay madaxweynihii horena ku-meelgaadh buu haweyn ognahay maxaad ka filaynaa madaxweynahan cusub inuu ku soo kordhiyo markaad eegto xagga nabadgelyada iyo dib u heshiisiinta siyaasadeed gobolkaasiba maxamed bidhaan aad u mahadsan tahay Mustafa waa ninaan isnaqaano si professional iyo intellectual labadaba nin aqoon-yahana oo weyn mutacalimiinta gobolka ugu waaweyn ka mid ayuu ahaa muddo dheerna ka soo shaqeeyay gobolka ka hor intuusan u wareegin UN-ta waxaan filaynaa waxa ugu weyn uu sameyn doonaa inay tahay horta sidii loo abuuri lahaa gobolka looga abuuri lahaa xasilooni siyaasadeed nabadgelyada loo dejin lahaa xasaradihii dhacay loo qaboojin lahaa wuxuu dhaxlayaa xaalad aad iyo aad u adag oo ay adkaanshaheedu aad u fara badan yahay waxaa ka mid ah dadkii oo aad u kala qaybsan gobolkii ku kala qaybsan qabiil ku kala qaybsan siyaasad nabadgelyadii oo meelaha qaar faraha ka baxday waana wax caadi ah oo meel walba adduunka ka jira meel Afghanistan Iraq meelo badan oo qalalaasoo ka dhacay qaramadooduna burbureen Congo Sierra Leone Liberia meel walba meel xukun dictator ah oo kaliya taliya ah oo dadka caburinaya uu ka jiro mar allaala markuu meesha ka baxo waxaa luma sharciga kala dambeyntii waan gartay maxamed Xaaji Ingiriis waad ogtahay imka durtaba tallaabooyin buu maalintii horeysay qaaday calankiiba wax laga bedelay magacii gobolka la bedelay arrimaha iyaga ka waran sidee kula muuqdaan talaabo weyn oo dadka isku soo dhaweynaysa ayay u muuqataa talaabo midaynaysa Soomaalida gobolka ayay u muuqataa waxay tahay talaabo dhiirigelin doonta dadku wax ay wada leeyahay inuu meesha ka dhismo oo dadka Soomaalida gobolka ku nool ay u wada arkayaan waxay isla leeyihiin national belonging wax qarannimo ay ku wada midaysan yihiin laba week hor isbuuc ayay ahayd markii si public la aniga laftirkayga aan u qoray in gobolka Soomaalida Itoobiya yahay gobolada Itoobiya oo dhan gobolka xisbigiisa la raaciyo Itoobiya Soomaalida Itoobiya halka gobolada kale aysan saa jirin waan gartay waxaan ku soo gabagabeynay maxamed doorasho waxay dhacaysaa 2020ka
miyo mustaqbalka sideeba kula muuqdaa doorashadaas inay dhacaysayeen kale doorashada dhacaysa waxay ka dhacaysaa gobolada Itoobiya oo dhan wax gobolka kaliya saameyn ku leh ma aha waxay qayb ka tahay dadaalada iyo isbedelada uu la yimi ra'iisul wasaaraha cusub Dr. Abiy Ahmed taas ayaa gobolkuna la jaan qaadi doona Mustafana yahay ninkii jaanqaadkaas u saldhigi lahaa oo qaadi lahaa waad mahadsantahay aqoonyahan Maxamed Xaaji Ingiriis oo inooga warramayay xaaladda gobolkaasi dagaalka ganacsi ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Shiinaha ayaa sii kululaanaya Washington ayaa iyagu cashuur gaadhaysa 16 bilyan oo dollar saaray alaabta Shiinaha iyagoo ka jawaabaya cashuurta lamida oo ay saareen Mareykanku alaabtiisa haddii aynu eegno waxa la saaray 25% waxyaabaha kiimikada biraha qalabka tareenada halka Mareykankuna ay doonayaan in iyaguna cashuur saaraan waxyaabaha kale ee ay isweydaarsanayaan labadaasi dal laga bilaabo dhuxusha ilaa gawaadhida ay cashuurtan saameynaysaa oo waxaad moodaa inay tahay wax runtii dhibaato badan ku haya labada dalba 100 bilyan alaab qiimaheedu gaadhayso ayay imka labadaasi dalba ku soo rogeen cashuuraha waxaana xudun ah baa la leeyahay xagga tacabka beeraha oo Shiinuhu ay saareen cashuur badan meelaha laga soo doorto Donald Trump ama Mareykanka oo ay tahay inay markaasi doonayaan cadaadis ku saaran laakiin Shiinuhu dadkiisa ayaa badan inay quudiyaan bay u baahan yihiin Axmed Xaaji Xasan ayaa eegaya dagaal kulul ayaa si hoose u socda waa dagaal ganacsi rasaasta iskorimaadkaasna waxa ay ku sii fidaysaa dhanka waqooyiga bari ee Shiinaha waa masago waxa suuragal ah in dad badan aysan hore u arag balse Shiinaha waa u muhiim qoodinta digaaga iyo xoolaha kale ee ay dhaqdaan waxay u baahan yihiin inay intan ka badan Mareykanka ka soo iibsadaan dagaalka ganacsiga ee Shiinaha iyo Mareykanka gabi ahaanba muusan saamayn beeraha halkan hagaag taasi way isbedeli rabtaa hadda sababtoo ah Shiinaha wuxuu 25% ku kordhiyay canshuurta masagada laga keeno Mareykanka balse dubaha uu Shiinaha la dhacayo beeralayda Mareykanka ee xudunta u ah dagaalka ganacsiga waxa uu ku tiirsan yahay waxa ay beertaan beeralaydiisa kumana koobna galeyda oo kali ah digirta waa muhiim badankeeduna waxa laga keenaa Mareykanka la'aanteedna hilib lama helayo in la soo dejiyo digirta Mareykanka waa raqiis qiimaha digirta aan soo saarno uu ka hooseeyaa qarashka beerashada rabitaanka dadka wuu hooseeyaa mana beeranayaan digirta in hub ahaan loo adeegsado dalagga wuxuu isu dheelitirnaan adag ku yahay Shiinaha aad ayuu uga fog yahay in beeralaydiisu ay isku filnaadaan waana ganacsi halis ah cabitaanka qaran ee Shiinahana ee Beiju waxaa laga sameeyaa masagadan canshuurta lala eegtay beeralayda Mareykanka waxay sicir barar ku noqonaysaa kuwa Shiinaha bal markana aynu eegno qodobada kale ku jira wararka maanta mas'uuliyiinta Faransiiska ayaa sheegay in nin toore ku dilay hooyadii iyo walaashii dabeetana isna boolisku toogteen waxay halkaas ku dhaawacmay qof kale ninkan ayaa ahaa nin mitidiinta islaamka kamid oo la yaqaanay waxaanu ku dhawaaqay Allahu Akbar markuu ficil ka sameeyay laakiin mushkiladu waa mushkilad qoys ururka ugu weyn muslimiinta Indonesia ayaa cambaariyay xariga haweeney buudhista ah oo ku noolad gobolka Sumatra kadib markii ay ka cabatay eedaanka masaajidka oo aad u dheer Melina oo 44 jir ayaa 18 bilood lagu xukumay iyadoo codsatay in laga naaquso eedaanka dadka ku nool jasiiradda Hawaii ayaa alaabta daruuriga ah kaydsanaya isla markaana guryahooda moosaya iyo daaqadahaba waxaana laga baqayaa in duufaankaasi oo ku socda 249 kilomitir uu saacadiiba soo gaadho halkaasi xildhibaan mucaaradka Uganda ka tirsan oo ahaa heesa caanana Bobby Wine ayaa lagu oogay dacwad khiyaamo qaran ah oo la xiriira rabshadihii doorashada halkaasi ka dhacday muddo sii horeysay dacwadaha ay militarigu ku haystaan siyaasigan ayaa waxa si adag u cambaariyay midowga Yurub iyo qaramada midoobay Suhayba Badqas ayaa inoo haysa Bobby Wine ayaa hadda xiran balse ciidamada ayaa feejigan waxa jiray dibadbaxyo ka dhan ah xarigiisa Bobby Wine oo marmarka qaar dadka xaafadda ku sheegaan madaxweynahooda ma uusan hilmaamin halka uu ka soo jeedo waxa taageera sabool aad u badan iyo dhalinyarada shaqo la'aanta ee Uganda Eid Kiberege
oo 26 jir ah ayaa qaada heesaha Bobby Wine maalintii oo dhan si uu u muujiyo midnimo. waxa uu bartay culunta ganacsiga balse dukaanla ayuu noqday markii uu shaqo waayay. waa codkayagii waxaanu siinaynaa codkayaga. Bobby waa madaxweynaha soo socda waana sida aanu rabno. waa qofka kaliya ee Museveni kursiga ka qaadi karaya. Bobby Wine waxa uu ku barbaaray halkan oo ah isku raranka Kamwokia ee Uganda. walaalkii ka yar ayaa ay kala tusinaya xaafadan. kani waa qolkiisa, waa mid iska caadi ah sida aad arkayso. hadda waxbaa laga bedelay, waa ka qurxoon yahay sidii hore. marka aan la hadlo wuxuu u arkaa in reer Uganda istaahilaan fursado badan. khayraad badan ayaynu haysanaa, balse looma adeegsan sida ay ahayd in loo isticmaalo. madaxweyne Museveni ayaa lagu eedeeyay inuu awoodda kula wareegay rabshado iyo handadaad. Bobby Wine iyo kuwa kale ayaa sida la sheegay la jir dilay intii la hayay. taageerayaasha Mr Museveni ayaa ku adkaysanaya inuu xafiiska ku joogo taageerada dadka. maxay tahay sababta uu madaxweynaha waddanka oo dhan uu ugu safray sida doorashadii ugu dambeysay oo aan qabanay in ka badan 300 oo dibadbaxyo siyaasadeed oo dadka lagu weydiisanayay ii codeeya wayna u codeeyeen. musharaxiinta kale waxay dadka weydiisteen ii codeeya, dadkuna way u codeeyeen. Bobby Wine ayaa ka hadlay arrimaha ku saabsan gacan bidixaynta dhalinyarada Uganda, balse waxa uu la dagaalamayaa nidaam jiray awoodda dalkana hayay in ka badan 36 sano. weli waxa inoo soo socda dooda khamiista ee toddobaadkan waxaanu ka hadlaynaa dumarka Soomaaliyeed maxay Ilhaan Cumar kaga dayan karayaan oo guul weyn gaadho siyaasadeed. haweenka Soomaaliyeed ee ku nool dalalka reer galbeedka ayaa baryahan dambe guulo dhaxalgala ka soo hooyay dhanka siyaasadda. guulahaasi waxa ugu dambeysay Ilhaan Cumar oo iyadu ku guuleysatay doorashada istreebreebka ee loogu tartamayo Koongareeska Mareykanka. Ilhaan Cumar waxay hadda qarka u saaran tahay inay noqoto haweeneydii ugu horeysay ee Muslim ah ee ku biirta golaha wakiilada ee Mareykanka. dhanka Yurub haddii aynu eegno laftigooda haween door ah oo Soomaali ah ayaa loo doortay golayaasha deegaanka. haba u badnaadaan wadamada Finland, Norway, Sweden iyo dalkan UK. haweenkan ayaa kala matala xisbiye kala duwan. waxaanu dhawaan haddaba kula kulmay magaalada Sheffield Kaltuun Cismaan Rivers oo ku guuleysatay xubin xildhibaanada golaha deegaanka ee Sheffield. waxay ii sheegtay sababta ay siyaasadda u soo gashay Kaltuun. siyaasadda waxay igu kalifay inaan galo. horta marar badan waxa jirta aad isweydiinayso waxyaabo badan oo qabanayso oo u baahan maybe inaad little bit of authority maartay bush yar inaad hesho waxaad kale oo igu kalifay inaan codkayga dadka wax ugu qabto maadaama oo aan maxaa dhahday waxyaabo badan oo inta waddanka deganaa ama aan bartay ama experience-ka waxa la yidhaahdaan haysto. waxa kaloo igu kalifay runtii aan horta isku dayo siyaasadda. dumarku markay siyaasadda galaan waa challenge ka weyn kuwa ragga. marka horta dhinac siyaasaddaan eegay maadaama aan dhinacyo badan oo kale noloshayda soo eegay. haddaba sidaynu ognahay haweenku door weyn kuma laha siyaasadda iyo hoggaanka dalka hooyo. marka waxaynu ka hadlaynaa barnaamijkeena caawa waxaynu ku falanqayn doonaa caqabadaha siyaasadda iyo hoggaanka ka hortaagan haweenka Soomaaliyeed. waxaa khadka ku jira xildhibaan Baar Siciid oo ah xildhibaanka kaliya ee baarlamaanka Jamhuuriyadda iskeed madaxbannaanida ugu dhawaaqday Soomaaliland iyo Faadimo Qaasim Dayib oo ah iyadu haweeneydii ugu horeysay ee ka qayb gasha tartanka madaxtinimada ee Soomaaliya. Baar iyo Faadimo labadiinaba waan idin soo dhaweynayaa. ku soo dhawaada BBC-da. waad salaamantahay waan dhowrahay. haddii aan ku bilaabo Baar waqtiga oo inagu yar iyo Faadimo labadiinaba aan Baar ku horeysiiyey maxaa u aragtaan caqabadaha ugu waaweyn haweenkii Soomaaliyeed hortaagan markay noqoto ka qaybgalka siyaasadda? Baar. caqabada ugu weyn oo hortaagan haweenka Soomaaliyeed siyaasadda dee waa ragga ma wax kala ragga weeye. waa ragga waayahay way qoslaysaa Faadimo way qoslaysaa. Faadimo adna maxaad u aragtaa? walaal ragga keli ma ahane waxa waaye waxyaalo badan oo isu imaaday oo kamid ah horta hore dhaqanka si qalad loo isticmaalo, diinta si qalad loo isticmaalo, dhaqaalaha oo ayna gabdhaha badankooda ayna haysanin. marka runtii waxa waaye waxyaalo badan ay isu imaaday ma aan kaliya ragga
ragga qaarkood waxaa ku jira kuwa gabdhaha runtii diyaar u aho oo raba inay hataa soo garab istaagaan marka waxyaalahaas aan ka dhawaajiyey ayaa gabdhihii maarata iskugu tagay oo runtii ka hor istaagayo inay meel ka soo muuqdaan oo hataa kaalintii ay xaqa u lahaayeen ay ka soo baxaan mahadsanid Faadumo haddaan baar kugu soo noqdo adu waxaad tahay xildhibaanka keliya ee dumar ee haweenka ay ku jira baarlamaanka Somaliland dee keliyaad halkaa ku tahay maxaad kala kulantay raggunba halkaa jooga baaray bal maxaad nooga sheegi karaysaa khibradaada aad halkaasi ka korodhsatay intii aad xildhibaanada ahayd wallaahi anigu wax dhiba kalama kulmin marka laga reebo dee qof keliya ayaan ahay haween ah 82 baan 82 kale waa rag dee way jiraan waxyaabo badan oo aan u baahnahay anigu oo arrimaha dumarka aan cod ugu doonayay oo aanan awoodin inaan dee maxay ahayd cod ku helo marka laakiin wax shakhsiya oo dhibaato ah oo aniga yacni maxay ahayd shakhsinimadayda ah oo dhibi igalama kulmin sababtoo ah Soomaalidu dhaqan bay leedahay dee layguma feero geeska waa gartay waan haddaynu halkaa hore uga soconno Somaliland waad ogtahay doorasho waxaa ka dhacday hal qof iyo hal cod aan idhaahdee haween badan baa codeeya haddana haweenkii maca Hargeysa kale imka wad joogtaa golihii deegaanka xitaa haween kuma jiro marka haweenkiiba la odhan karaa iyagiiba dee aan isu codeynayno raggii u codeynaya haweenka dee horta marka la eego dee raggaa xukuma xaqiiqdii sababta aanay isugu codeynaynin waxa weeye waxaa jira dhaqan sida ay walaasha ii sheegtay dhaqan baa jira soo jireena dadku waxay jecel yihiin wax la yiraahdo qabyaalad raggii waxay ku bushkaraynayaan dumarka in qabiilkooda ninka ka sharaxan ay doortaan dumarku iyagoo shaqaynaya oo dhaqaalaha soo saara oo wax badan qabanaya ayaanay hanti gaara lahayn haddana maxay ahayd raggu hantidii leeyahay waxa laga yaabaa anigoo 60 sano shaqaynaya in wixii aan xoojiyay inay ninkayga ku qoran tahay example baan yani u soo qaadanaya marka dee dhibaatooyin badan baa dumarka hortaagan waa badan baad leedahay baar waad mahadsantay Faadumo aan u soo wareegaya Faadumo adigu waxaad ahayd heer madaxweyne waxaad noqotay musharax madaxweyne intaasoo nin baad dee la tartamaysay oo dee rag siyaasadda ku soo jiro Soomaaliyada marka maxaad khibradaadii nooga sheegi karaysaa maxaad la kulantay markaad musharaxada noqotay madaxweynaha waxaan la kulmay wax ay gabdhaha badanka ama dumarka badankooda oo siyaasadda u tartamaya la kulmaan oo ay runtii horta hore in la isku dayo in laga astaajiyo tartankaas hataa midda kale waxaan la kulmay dad runtii saan u sheegay aanba aaminsanaynba haweenka ama dumarkaba inay door ka ciyaari karaan siyaasadda waxaan la kulmay in liica ka jugleeyo waxaan la kulmay in hataa ay dadku ay igu sheekaystaan oo hataa ay igu qoslaan oo la dhaho qofkii ma qafiifto ma waalata maxaa ku qasbay inay waxaa ku dhaqaaqdo waxyaalo badan aan la kulmay isla sidaasna ayadoo ay tahay wax fiicanna waa la kulmay dad badan oo runtii ayaguna maxaan ku dhahaa raba isbeddel inay arkaan waxaan la kulmay rag badan oo aaminsan dumarka inay doorkaas ka soo bixi karaan oo runtii hiil iyo hoob ila soo agstaagay waxaan la kulmay gabdho diyaar u ah inay walaalahooda ay taakulayaan oo aan aaminsanayn maxaan ku dhahaa qabiil oo aaminsan in gabadha lagu soo doorto aqoonteeda iyo waxqabadkeeda iyo waxgaradkeeda waxaan la kulmay hataa wadaado oo really moderate oo aaminsan naftirkooda in dumarka ay kaalin fiican siyaasadda door fiican ay ka qaadan karaan marka labada meel haddaad u fiirisid xumaana waan arkay inkastoo wixii fiicnaa inay ka badan yihiin xumaanta aan arkay waad mahadsantahay Faadumo waan kugu soo noqon doonaa xildhibaan Baar Siciid maxaad imika haddii aan hore u socono aan eegno bal mustaqbalkii maxay kula tahay sideeba haweenkii door weyn loogu furi karaa fursad inay kaga qayb qaataan noloshii siyaasadeed ee dee jirtay horta wax badan baa is yar bedelay baad moodaa iminka xaqiiqdii kolley jaaniskii hore iminka jaanis ka badan bay haystaan dumarku
waxaa la ogaaday in dumarku maxay tahay hawlkarsan yihiin ragga ka daacadsan yihiin marka la eego xitaa shaqada atataniska marka la eego dumarku ka daacadsan yihiin oo aanay googoyn iyo maxay ahaytoy balwad iyo waxay ku habsaamaan midna aanay jirin waxaa la ogaaday in qof kasta oo doonaa qofka dumarka ah qof kasta oo doonaa uu helayo si hawl yar u helayo oo aanay askarna isor dhigin maxay ahaytoy meel mafrisho oo dadku ka didayana aanay tegayn in gurigeeda qofka caanaha iibinaya iyo kan kale ee sarkaalka ah mid qof kasta ka helayo marka jaanis badan bay haystaan maanta dumarku xaqiiqdii laakiin kolley mar kastaba caqabad baa jirta haddaan kaa dhex galo baaray Soomaaliland imika waxa la soo saaray koota la leeyahay oo baryahanba socotay baarlamaanka soo socda la dooranay ama golayaasha deegaanka taasi maxaad is leedahay wax way bedelaysaa mase is leedahay suurtagal ma tahay والله de kootada in badan baa horta maxay ahayd ay ku dadaaleen dumarka reer Soomaaliland inay koota helaan oo laga hadlayay dhaqaale badan iyo xoog badan iyo awood badan baa la geliyay haddii daacad laga noqdo de suurtagal way tahay laakiin ilaa hadda ma cadda anigu hadda ka horna waan ka hadlay marka ma cadda oo yani wax dhamaaday oo soo dhamaaday maaha waan gartay Faadumo adigu imika waxaad la shaqaysay xitaa qaramada midoobay hay'ado badan baad la shaqaysay arrimaha haweenka Soomaaliyeed iyo haweenka sideeba hadaba su'aasha aan baar weydiiyo kale sideeba kor loogu qaadi karayaa in haweenkii ay qayb ka noqdaan noloshii siyaasadeed iyo noloshii hogaamineed ee dalka horta su'aashan markasta waa la isweydiiyaa ayadoo loo filanayo ama uu fikirku uu yahay inayna haweenka diyaar ahayn haweenka diyaar waa yihiin waxaa la rabaa in la hubiyo doorka ay rabaan inay ka ciyaaraan in lagu xoojiyo ha ahaato hataa haddii dastuurka la gelin kara maxaan ku dhahaa in loo ogol yahay oo doorkooda ay kasoo bixi karaan sababtoo hadda boostaskii hataa la siiyey qaarkooda rag ayaa ku cariirinaya ama ku fadhiya marka runtii waa gabdhaha Soomaalida haddaad la hadashid iyo dumarkeena diyaaray u yihiin inay kaalin fiican siyaasadda ka ciyaaraan waxaa laga rabaa in spaceka loo fura hadda gabdhaha walaalaheena aad ka dhawaajisay Ilhaan iyo Kaltuun iyo gabdhaha kale oo ayagana maaragtay Finland iyo Scandinavia siyaasadda oo qurbaha soo galayo waa kuwa loo furay spaceka marka taasna waa in Soomaaliya laga soo biyaay fursada la siiyay fursadaas waa in la siiyaa gabdhaha ama dumarkeena oo maaragtay ayagana kaalintooda ay ka soo bixi karaan marka fursadii hadayna jirin waxay marka lagu qasbayaa inayna meesha soo gelinaanba ayba soo istaaginba marka haddii fursadii Faadumo Dayib oo ahayd musharax hore madaxweyne wad mahadsantahay Faadumo inaad naga soo biirto khadka xildhibaan Baar Siciid oo xildhibaanada qore iyaduna baarlamaanka Soomaaliland ku jirta xildhibaan Baar adigana waan ku mahad celinayaa barnaamijka nagala qayb gasheen waa mahadsantihiin barnaamijkeena caawa intaas ayuu ku dhan yahay waxaan leeyahay sidaa iyo nabadgelyo